الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواada asxaabteeda kusoo dhawaada channelkeyga Nasra Carfaayo Cooking Channel. asxaabteeda maanta waxaan sameysan doonaa qado fudud insha Allah, bariis biryani oo muxuu ahaa ishag laga sameynayo qudaar bes insha Allah. sida ugu fudud u sameyn doonaan waa arki doontii insha Allah. isla socod wanaagsan. fadlan hadii aad channelka ku cusub tahay subscribe saaro, hadii aad hore noola joogtana soo dhawaa mar kaleento fadlan like saar videoga haduu ku cajibiyo insha Allah. bismillah. hadartan waxaa bilaabaneynaa muuqaalkeena insha Allah. digsi ayaa dabka soo saartay, waxaa ku shuban doonaa saliid olive oil. bismillah. waata asxaabteeda hadartan waxaa sugeynaa inta saliid ay nooga soo kululaan doonto insha Allah. waata asxaabteeda haddana saliid way noo soo kululaato, waxaa ku darsan doona xabad basal weyn aan soo jarjaray. asxaabteeda basashan hadda ma isticmaali doono, gadaal ka isticmaali doonaa, waadna ila socdoontaa insha Allah. waxaa sugeynaa basasha inta si fiican oo guduudinaysa insha Allah. isku soo laabanayna. waata asxaabteeda haddana basasha sidaan ay u guduudatay. hadartan waa ka babaxsanaa, meel iska dhigan doona ayada sida hore idinku soo sheegay, gadaal ka isticmaali doona. hadartaana waa ka babaxsanaa. hadartan waxaa ku darsanaa basashii aan ugu talagalay inaan ku kariyo muxuu ahaa bariiska. hadartan waxaa sugeynaa inta basasha nooga soo shiilmi doonto insha Allah. oo isku soo laabanayna. waata asxaabteeda haddana basasha way noo soo muxuu ahaa isheeg noo soo shiilmatay. hadartan waxaa ku darsan doonaa toon iyo kabsar caleen aan soo jarjaray. sidoo kale waxaa ku darsanaa meesha waxaa ku heystaa baradho oo qaabkan kuuskuusan oo soo jare muxuu ahaa isha karooto iyo barbarooni iyo xabad liin dhanaan aan ku miiri doono insha Allah. sidoo kale waxaa ku darsan doonaa hal qaando oo qalka tufaaxa. waata asxaabteeda intaana waxaa sugeynaa inta iskaga shiilmi doonaan insha Allah. wax biyo ma ku dari doono. qudaarta markaas iskeeda sidaan la iskugu shiilo muxuu ahaa ishig dhaqsina way ku bislaanaysaa, dhadhan macaan badan oo gooni ah way siinaysaa cuntada insha Allah. hadartan waxaa sugeynaa inta muxuu ahaa ishig ee ka soo shiilmi doonto insha Allah qudaarta. waata asxaabteeda 10 daqiiqo kadib waxaa ku soo laabtay qudaarteena. ilaa hadda wax biyo ma ku darin, dabka waa u gaabi meesha ugu daciifsana u geeyay dabka. ilaa hadda wax biyo ma ku darin, hadda sidaan ay ku bislaatay diyaar noogu tahay. waxaa ku darsan doonaa waxyaabaha kale oo carfiska ugu talagalnay insha Allah. maraq digaaga qudaarta ka sameysan, xawaajiyaal isku dardaray, cusbo, فلفل شيدا، سنجبيل شيدا،
hadeertaan waxaa ku darsan doonaa waa digirta cagaaran. hadeertaan waxaa sugeynaa intaan iskaga sii shiilmi doonaa amba waxyar isku huuri doonaan insha allah. waata asxaabteeda 5 daqiiqo kadib hadda waxaa kusoo laabanay qudaarteena hadda sidaan ayay diyaar noogu tahay asxaabteeda. meeshaan waxaa ku heystaa bariiska adi ilaa 2 saacadood camal qasay oo biyo ku qasnay kadib biyo caadiya waxaa ku kariyay 5 daqiiqo camal. waa ka xumahay ma idin duubin 5 daqiiqo ugu badnaan 5 daqiiqo amba 4 daqiiqo sababtoo ah bariiska biyaha uu ku bislaadayba. hadeertaan waxaan ku shubaneynaa digsigeena. bismillah. kadib waxaa sameysanaynaa basashii hadaay marka ugu horeysa aan soo shiilay hadda isticmaaleynaa marka. sidoo kale waxaa ku darsanaynaa waxyar kabsar caleen ah. sidoo kale waxaa ku darsanaynaa waxyar oo food color ah. sidoo kale waxaa ku darsanaynaa sabiib. hadeertaan intaana waxaa sameyneynaa waa isku huurineynaa dabkana waxaa u geenay meesha ugu dambeyso ilaa iyo wuxuu huursanaan doonaa insha allah 5 iyo 10 daqiiqo kadib waa kusoo laabaneynaa insha allah. waxaa arkaynaa soo noogu soo baxa insha allah. waata asxaabteeda hadeertaan waxaa kusoo laabanay bariiskeena oo 15 daqiiqo aan ka maqneene. maasha allah tabaarakallah. waa ujeedaa siduu u qurux badan yahay siduu u huuray. hadeertaanne dabkaa ka dansaneynaa waa soo diyaarsanaynaa insha allah. isla socod wanaagsan. waata asxaabteeda hadeertaan waxaa guranaynaa qadadeena insha allah. waata asxaabteeda qadadeena quruxda badan markaa soo diyaarsanay sidaan quruxda badan inoogu soo baxday. asxaabteeda meesha waxaa ku heystaa ansalaatadii ama saladkii lagu cuni lahaa. sidoo kale meeshaan waxaa ku heystaa cabitaan liin ka sameysan. waa kana bariis baryaanigeena qudaarta ka sameysnaa sidaan quruxda badan inoogu soo baxay. maxaad ka tuugaysaa hilib wixii markaas aa haysatid oo gurigaaga ku yaalo waxaa ka sameysan kartaa wax qurux badan macaan badan indhaha soo jiidanaya insha allah. asxaabteena waa waxa ugu fudud ee aa heli kartid ka sameyso cunto qurux badan oo familkaaga ku raaxaystaan insha allah. waa kana asxaabe inta haysanin allah siiyo anagana allah inoo siyaadiyo. intaan ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xiga waa walaashii Nasra Carfaayo idinkaga tagaysa bashbash iyo barwaaqo khayr iyo caafimaad insha allah.